marka ay isku jiraan labadan maado vitamin C iyo zinc waxay ka qayb qaataan shaqooyin aad iyo aad ugu muhiimsan dhanka iyo caafimaadka waxayna yareeyaan marxalado kala duwan ee saameyn ku noqon karo jirka bani'aadamka. Vitamin C iyo zinc waxyaabaha ugu horeeya ay qabtaan waxaa ka mid ah in hab difaaca jirka ama wareegga dhiigga ee qaybaha difaaca qaabilsan inay aad kor ugu qaadaan shaqooyinkooda iyo inay ka hortagaan cudurro badan waxyeeladooda iyo saameyntooda. haddii ay maadooyinkan yaraadaan vitamin C iyo zinc qofka wuxuu isku arki karaa calaamado kala duwan. haddii maadooyinkan qofka uu joogteeyo isticmaalkooda uuna isticmaalo maalinkii hal xabo in muddo markuu uu joogo. saaxiibayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigoo ah Dr. Maxamed Liiban Maxamed waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin. sidoo kale inta igu cusub iyo inta hore waxaan si gaar ah idinkaga codsanaa like-ta, follow-ga, subscribe-ka channelskayga Facebook-ga iyo YouTube-ka inaan laga hilmaamin. wixii talo iyo aragti aad u baahan tahay inaad iga soo weydiin kartid adigoo addresskayga ama mobile phone-kayga aad ka heli kartid dhanka YouTube description-ka. maanta waxaan dul istaagaynaa waxa loo yaqaano vitamin C iyo zinc. marka ugu horeyso labadan maado waxay ka mid yihiin waxyaabaha supplementary-ga ama microvitaminska waxyaabaha jirka uu mar walba u baahan yahay. badan qaybood ee zinc iyo vitamin C waxa ugu horeeyo ee ka qayb qaadanayaan waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano immune system, wareegga habdifaaca jirka inay saacidaan in waxyeelo hadday jirto saameyn cudurro kala duwan ay jirto inay ka yareeyaan inay kor u qaadaan awoodda jirka uu leeyahay. sidoo kale vitamin C-ga iyo zinc-ga haddii jeer jirka bani'aadamka in badan ma kaydsan karo wuxuu u baahan yahay qofka inuu ka helo cunooyinka kala duwan ama si gaara ayaga inuu u qaato. vitamin C iyo zinc waxay kaloo ka qayb qaataan marka ay dhacayaan falgalada kiimikeed ee jirka energy-ga uu ku sameysanayo gaar ahaan proteinska, carbohydrateska iyo fatska. habdifaaca jirka siyaabaha ay ugu kala qayb qaataan waxaa ka mid ah laba qaybood inay kaga hortagaan first line marka ugu horeyso in jirka marka uu soo galo waxyaabaha microorganismska, viral diseaseska, cudurrada viruska, infectionska kala duwan ama bacteriyada inay kasoo gudbaan qaybaha kala duwan ee mucosa membrane-ka xuubabka ku dahaaran organiska ama maqaarka inay ka gudbaan. waxay sameynayaan in meeshaas ay ku hakiyaan kana hortagaan in gudaha aysan u gudbin ama habwareegga dhiigga. sidoo kale waxay kaloo ay ka qayb qaataan marka labaad waxa loo yaqaano adaptive in ay joogteeyaan ama kor ay u qaadaan habdifaaca jirka uu leeyahay gaar ahaan labada qaybood hormonal regulation iyo waxa loo yaqaano immune cellska in ay kor u qaadaan hormoneska kala duwan shaqooyinka ay qabanayaan gaar ahaan pituitary gland-ka iyo thyroid-ka. vitamin C iyo zinc waxay ka saacidaan labadan hormone shaqooyinkooda inay aad u wanaagsanaadaan kana yareeyaan waxyeelada caafimaad dare ee ku imaan karta. sidoo kale vitamin C iyo zinc marka ay isku jiraan waxay ka qayb qaataan in haddii jeer ay aad kor ugu qaadaan immune cellska unugyada difaaca uu ka samaysan yahay gaar ahaan kuwa loo yaqaano lymphocyte cells, neutrophilska, eosinophilska. marka ay infectionska ay ku badan karaan qaybaha kala duwan ee habwareegga dhiigga waxyeeladooda iyo saameyntooda inay ka yareeyaan iyo infectionskaas inuusan noqonin mid joogto ah kuna raagi kara ama kuna badan kara qaybaha kala duwan ee jirka. haddaan ku horumarno vitamin C faa'iidooyinka uu leeyahay. marka ugu horeysa vitamin C si gaara wuxuu faa'iido ugu leeyahay habwareegga dhiigga gaar ahaan blood circulation qaybaha kala duwan ee organiska ama xubnaha jirka marka dhiigga ay aadayaan inaysan dhiigga dhexdiisa ama xididaha dhexdooda aysan ku samaysamin waxa loo yaqaano atheroma ama arteriosclerosis dhagaxaan yaryar ama wasaq inay ku dhex samaysanto xididaha kala duwan ee xubnaha jirka bani'aadamka marka ay dhiigga u qaadayaan inay ka yareyso vitamin C. sidoo kale dadka la nool qaybaha kala duwan ee pulmonary disease-ka xubnaha neefmareennada gaar ahaan sanbabada iyo xididaha ku hareereysan marka ay ku samaysmayaan infections kala duwan inay yareyso waxyeeladooda iyo saameyntooda. sidoo kale dadka la xanuunsan qaybaha kala duwan ee cudurrada wadnaha isticmaalka vitamin C wuxuu u yahay faa'iidooyin aad u badan waxayna ka yareynayaan habqulqulka dhiigga inuu cirdoobo iyo in culays uu ku imaado marka uu cudurrada daaha uu qabo gaar ahaan dhiig karka. sidoo kale vitamin C wuxuu kaloo aad iyo aad u anfacaa dadka uu maqaarkooda uu ku dhacay infectionska kala duwan ama cudurrada maqaarka ku dhaca
gaar ahaan eczema iyo dermatitis. In habdifaaca jirka gaar ahaan marka ay samaysmayaan borotiinada kale ah collagenka iyo fibroblast iyo amino acidska ku shaqo leh qaybahaas maqaarka shaqooyinkooda iyo waxqabadkooda inuu had iyo jeer uu aada sare ugu qaado iyo inuu ka ilaaliyo allergicska ama infectionska kusoo laabanayo maqaarka. waxyaabaha kale ee vitamin C uu ka qayb qaato waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaana hemoglobin synthesis. In marka lasoo saarayo RBC-ga ama dhiigga hemoglobinka inuu ka qayb qaato in badan oo aada quality u leh aadna u xoog badan inuu soo geliyo jirka. sidoo kale vitamin C waxyaabaha kale uu had iyo jeer ka saacidaya waxaa ka mid ah marka uu qofka isku arko cudurada kala duwan autoimmune disease, cudurada habdifaaca jirka hoos u yareeya kuwaasoo saameyn ku noqda xubnaha jirka baniaadanka gaar ahaan muruqaha iyo lafaha. vitamin C faa'iidooyinka uu qabto waxaa la arkay marka qofka infections muruqaha uu kusoo laabto iyo infectionsku ku dhaco qaybaha kala duwan ee lafaha in saameyntooda iyo waxyeeladooda uu hoos u dhigo. marka aan u imaano faa'iidada uu leeyahay zinc waxaa ugu horeeyay maintenance of hormonal regulation, inuu joogteeyo korna uu qaado habwareega dhacaamada jirka baniaadanka laga soo deynayo gaar ahaan marka laga hadlayo endocrine system, qanjirada jirka baniaadanka dhacaamadooda mid aada u sareeyo inuu ka dhigo gaar ahaan saddexda dhacaana ugu muhiimsan pituitary glandka, thyroidka iyo testiska marka ay soo deynayaan spermaha ama testosteronka. haddii jeer waxaa la arkay dadka isticmaala zingiga inay ka yaraadaan marxaladaha caafimaad daro ee qaybaha kala duwan dhacaamada marka la soo deynayo saameynayo. sidoo kale waxaa kaloo lagu arkay zingi isticmaalkiisa marka uu qofka uu joogteeyey inay ka yaraadaan testicular atrophy inay dhacaan, in xubnaha taranka gaar ahaan testiska ama xiniyaha inay baaba-aan unugyadooda maqaarka ku dahaaran inuu ka difaaco in baaba uu ku imaado. sidoo kale waxaa kaloo ka mid ah inuu sameeyo muscle repairing, in uu dib u habeeyo ama aada u saacido samaysinka murqaha, inuu ka yareeyo waxyeelada soo gaari karta murqaha iyo in murqaha baniaadanka uu ku dhaco wax loo yaqaano wasting inay dibcaan ee baaba-aan. zingi qofka marka uu joogteeyo waxaa had iyo jeer kor u kacayo dhanka iyo dhalmada dhacaamada ku shaqo leh. waxaana lagu arkaa qofka isticmaalkiisa zingi markuu aada u badiyo inay ka yaraadaan cudurada ku dhaco dhanka iyo dhalmada ama cudurada saameeya genital organiska xubnaha dhalmada. waxaana lagu arkaa qofka in awoodihiisa jireed dhanka iyo shahwaadka ama ugaxaanta dumarka in had iyo jeer ay yihiin kuwa aada u sareeya kuna yaraadaan cudurada ku dhici karta dhanka iyo dhasha. sidoo kale maadadan zingi waxay kaloo aada u yareysaa marka uu afka uu ku dhacayo infectionska kala duwan iyo in qofka marka uu leeyahay wax loo yaqaano halitosis afkiisa inuu soo shiirayo ur badanna uu ku jiro dadkana uusan la macaamili karin in muddahan uu ka cabanayo halitosis wax loo yaqaano ama infectionsku ku dhaco afka gudihiisa. in marxaladaas marka ay jirto isticmaalka maadadan marka uu qofku aada u badiyo waxaa la arkaya in marxaladahaas kala duwan ee aada hoos ugu dhaceen qofkana uu ka dareemaya caafimaad aada u wanaagsan dhanka iyo afkiisa. sidoo kale ilmaha dhankooda marka aan ka fiirino zingi maadada loo yaqaano waxay ka saacidaa garoodka koritaanka. ilmaha aan badanaa la siinin maadadan zingi waxaa lagu arkay growth retardation, habkoriinkooda jirka inuu ku imaado nusqaan iyo in hoos dhac u jiro koriinka jirkooda gaar ahaan ilmaha in lagu arkayo growth retardation, koritaan badan inuusan jirin, murqahooda lafaha inay aada u yaryihiin marka loo fiiriyo dhanka iyo da-dooda. isticmaalkeeda marka aan ka hadlo maadooyinkan zingi iyo vitamin C waxaa loo isticmaali karaa maalinka in hal xabo uu qaato in ku dhow 3 biloodna uu gaarsiiyo systemka loo yaqaano immune boosting, in marba marka ka dambeyso uu habdifaaciisa jir kor ugu soo qaado maalin walbana hal xabo uu ka isticmaalo. waxay ka dhigan tahay in marxaladaas caafimaad daro ee jirka ay ku yaraanayaan jirkana habdifaaciisa jir marba marka ka dambeyso kor ugu soo kacayo. dabcan isticmaalka vitamin C iyo zingi isku jirkoodu markaad in muddo aad joogtid waxaa muhiima inaad isticmaashid. haddii ay qofka ay ku yaraadaan labadan maado vitamin C iyo zingi qofka waxaa lagu arkaa gambleedin ciridkiisa inuu mararka qaarkood ku arkayo dhiig, sidoo kale caajis badan, sidoo kale waxaa kaloo lagu arkaa in uu jiro growth retardation, in koritaankiisu aada u yaraade, maqaarka qaybaha kala duwana daraay lagu arkayo aada u qalalan yahay, in qofkaas afkiisa uu soo uraayo,
timihiisana ay aada u jajabayaan dhammaan waxay ka tarjumayaan in qofkaas aada u yaraanayo immune systemka habdifaaciisa jirka uusan ka maarmin isticmaalka labadan maado ayaan kusoo gabagabeynaa anigoo ah doctor maxamed liibaan maxamed aad iyo aad aan kaga mahad celinaa dhegeysiga la socodka video kelmiska wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu